kulanti wanaagsan halkani waa Cadaada Media Group qodobada warka waxa ugu waaweyn guddiga doorashooyinka galmudug ee ay soo magacawday dawladda federaalka Soomaaliya oo qashqashaad kala kulmay ahlu sunna diyaaradda sidee guddigan ayaa muddo dul meereysanaysa garoonka magaalada Dhuusamareeb kadib markii ahlu sunna ay u diideen inay degto wararkii ugu dambeeyay ee Dhuusamareeb ayaa halkan ka daawan doontaan Ra'iisul Wasaare Khayre oo shir fadeexad u soo jeeday kaga qayb galay hoteelkii lagu dilay taliyihii ciidamada gorgor ee kumaandoosta Soomaaliya Axmed Madoobe oo bilaabay dadaalo uu dawladda kaga hor istaagayo in doorasho ay ku qabato gobolka Gado ciidamo fara badan oo Jubbaland ayaa weerar toos ah oo ay ugu dhul xaarayaan arrimahaas ka bilaabay qaybo kamid ah gobolada Gado iyo sidoo kale Jubbada Hoose halkan ayaad macluumaad ku saabsan kaga bogan doontaan qodobada kale waxa qayb ka noqonaya maxaad ku ogtahay daawada natiijada la qariyay ee kulamadii uu mas'uuliyiin filla Soomaaliya ka tirsan la yeeshay safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Kenya xubnaha hogaamiye filla Soomaaliya oo fashil faraha la galay iyo sirta culus ee ka dambaysa in safiirka Kenya u fadhiya dalka Mareykanka uu ku dhawaaqo in madaxda dalka uu kala hadlay sidii wada xaajood looga gali lahaa kiiska badda ayaa halkan macluumaad ku saabsan kaga bogan doonta qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka Cadaada Media Group fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay channelka nagu soo bir subscribe kadibna fura gambaleelka aynu ku bilowno warka Cadaada Media Group guddiga doorasho ee galmudug ay soo magacawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka degay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug iyagoo halkaas qashqashaad kala kulmay xubnaha ahlu sunna ee ku sugan Dhuusamareeb ahlu sunna ayaa diiday in guddigan ay ka degaan nagagada diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb diyaaradda sidee guddiga ayaa muddo dul haabeysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ugu dambeynna waxa loo ogolaaday in halkaasi ay ka degaan ahlu sunna ayaa amar ku bixisay diyaaraddaasi inaysan ka degi karin magaalada Dhuusamareeb kadib markii ay ku andacoodeen in madaxda federaalka Soomaaliya ay xanibaad saareen mas'uuliyiin ka tirsan guddiga uu shalay magacaabay madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan oo iyaguna ka soo duuli lahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka xogo hoose waxay sheegayaan in dawladda federaalka Soomaaliya gabi ahaanba ay diiday in xubnahaasi Sheekh Shaakir uu magacaabay ee ku sugan Muqdisho ay ka duulaan gagada diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka taasina waxay keentay in Sheekh Shaakir iyo xulufadiisu ay u dhaqaaqaan sidii xanibaado dhankooda ay u saari lahaayeen guddiga ay soo magacawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan la wadaagno bulshada reer galmudug waxaan joognaa caasimadda galmudug Dhuusamareeb waxaan soo dhaweynay saakay guddiga doorashooyinka ee galmudug xaaladda boqolkiiba boqol amnigu uu fiican yahay waxaan rabnaa bulshada inay la shaqeyso laamaha amniga si loo helo horumar amni horumarka ciidamada amnigu ay sameeyaan waa badan yahay deegaanada muxuu ahaa caasimadda hoos yimaada ayaa amniga ciidamada amniga ka shaqeynayaan caasimadda gudaheeda ka shaqeynayaan baaritaano ayay wadaan runtii ay kula dagaalamayaan muqadaraadyada iyo waxyaabaha amniga liita ku ah marka waxaan dhihi karnaa heerka amnigu boqolkiiba boqol waa aad u fiican yahay ilaahay baana hadda iskale dadka reer galmudugna waxaan leenahay sidaas oo aad ugu sii dhawaataan waaye marka qof walba muwaadin ah waxaa waajib ka saaran amniga wuxuu xaq u leeyahay inuu amnigii sugto wixii uu arkana uu noo soo sheego si markaas amniga iyo bulshadu ay isku mid wax uga qabtaan kadib guddigan markay ka soo degeen gagada diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa loo galbiyay gudaha magaalada iyadoona xarun gaar ah la geeyay lamana oga qaabkay u shaqeyn doonaan Sheekh Shaakir iyo xulufadiisa ayaana diidan gabi ahaanba guddigan kana soo horjeeda warar hoose oo kale oo aynu helayno waxay sheegayaan in xubnaha ahlu sunna ay abaabul ka bilaabeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug abaabulkaas oo ah mid ay kaga hortagayaan amaba ay ku doonayaan in ay ka hortagaan guddiga ay soo magacawday dawladda federaalka Soomaaliya madaxda ugu sareysa maamulka ahlu sunna waxay aruursanayaan hub iyo ciidan iyadoona halkaasi cabsi weyn ay ka jirto qorshaha ahlu sunna ayaa ah in ay bilaabaan dhismaha maamul goboleedka galmudug oo ay garwadeen ka yihiin maadaama dawladdu sidoo kale ay wado dhismaha galmudug ay doonayso inay gacanta ku hayso kulamo saacadii la soo dhaafay ay ku yeesheen hogaanka ugu sareeya ahlu sunna magaalada Dhuusamareeb ayay isla garteen in magaalada Dhuusamareeb ay ka bilaabaan abaabulka doorasho amaba dhismaha maamulka galmudug taasi oo ka hor imaanaysa qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale ahlu sunna ayaa waxa ay qaybo ka mid ah gobolada mudug iyo galgaduud ka wada ciidamo aruursi iyagoona doonaya inay ka hortagaan is-hortaagna ku sameeyaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee doonaya iyagu in halkaasi Dhuusamareeb loo geeyo dhismaha maamul goboleedka galmudug shalay ayay ahayd markii madaxa xukuumadda galmudug kana mid ah madaxda hogaamisa ahlu sunna uu ku dhawaaqay guddi doorasho waxaana hadda cirka isku sii shareeraya khilaafka ahlu sunna ee dawladda federaalka Soomaaliya
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye Qarafaan ayaa fadhiya magaalada Dhuusamareeb waxaana waxba ka qaban la'yahay arrimahan xalinta khilaafaadka dowladda federaalka Soomaaliya ahlu sunna iyadoona ahlu sunna ay u arkaan inuu yahay for example amaba mid aan waxba qaban karin oo dowladda federaalka inuu ku madadaaliso ahlu sunna ay ugu soo dirtay waxay iska diideen in kulamo ay la qaataan kulan uu la qaatay madaxa xukuumadda galmudugna waxa uu noqday mid aan wax natiijo ah ka soo bixin iyadoo gabi ahaanba ugu dambeyn ay sababtay arrintaas in guddi cusub uu ku dhawaaqo Sheekh Shaakir Cali Xasan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo ayaa midkood looga fadhiyaa inuu tago magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug si arrintan loo xalliyo walow hadda ay arrinta sii fogaatay kadib markii Sheekh Shaakir uu afgambiyay dadaaladii dowladda federaalka ay ka waday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug xaalka magaalada Dhuusamareeb ayaa mid cakiran iyadoona cabsi badan ay ka jirto shacbiga ayaa ka cabsi qaba in ciidamada halkaasi ay ku hardamaan waa kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa taabacsan ahlu sunna ee ku wada sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug qalqal badan ayaa ka jira sidoo kale dhinaca siyaasadda Sheekh Shaakir Cali Xasan iyo xubnaha kale ahlu sunna ayaa kulamo isdaba joog yeelanayo oo uga arrinsanayaan halka ay wax ka bilaabi lahaayeen dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya wasiir Qarafaan oo ka socda iyo xubnaha guddigan ayaa kulamo leh lamana oga qaabka xiga amaba tilaabada xigta dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadi doonto ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa wali waxa uu san ka hadlin dilkii loo geystay taliyaha ciidamada gorgor ee kumaandoosta Soomaaliya kaasi oo ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxaana ninkani la dilay sidoo kale uu ahaa taliyaha amaba madaxa gaarka ah ee ciidamada ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa isla hotelkii hortiisa lagu toogtay taliyaha wuxuu kaga qayb galay shir soconaya 22 Oktoobar ilaa 26 waxaana shirkaasi uu yahay mid fadeexada badan oo ku wajahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo shirkaasi galay kadib markii uu dalka dib ugu soo laabtay kulanka ay yeelanayaan agaasimayaasha guud ayaa wuxuu yahay mid si toos ah shalay halkaasi looga daafuray ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaana goobjoog ah isagoo wali wax hadal ka soo qaadin dilkii loo geystay taliyihii ciidamada gorgor ee kumaandoosta Soomaaliya arrintan ayaa waxay tahay mid ay dhammaan ku fadeexayaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwa mucaaradka iyo ehelada taliyihii ciidamada gorgor arrintan uu ku dhaqaaqay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhankiisa waxa gaaray sida warar hoose ay sheegayaan fariimo ay direen qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka kuwaasi oo ku dhaleecaynaya in uu yahay mid waxba aan mas'uuliyad iska saareynin dadka taliyaasha amaba ciidamada ka tirsan ee sida xaqdarrada ah loogu gumaadayo gudaha dalka iyagoona ku tilmaamay in uu yahay mid isagu wax ka maleega amaba dan gaara ku wata arrimahan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa bilaabay dadaalo uu kaga hortagayo in wafuud ka socota dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dagaan magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo halkaasi dowladda ay qorshaysay inay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay oo ay sheegtay in loo qabanayo maamulka Jubbaland inkastoo beesha caalamka ay cadaadis ku saarayso dowladda federaalka Soomaaliya in arrintaasi aysan xilligan ku dhaqaaqin dhinaca kalena Axmed Madoobe xafiiskiisa ay ku dhaceen fariimo ka socda beesha caalamka oo looga hadlayay in uu ka tanaasulo ogolaadana in doorasho lagu qabato magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland ayaa haddana dowladda waxay wadaa dadaalo ay ku doonayso inay ku geyso wafuud ka socda filla Soomaaliya magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo si halkaasi looga ambaqaado shirar dib u heshiisiinad oo loo qabanayo dadka ku nool Jubbaland isla markaasina lagu dajinayo kaartooyinkii looga taqallusi lahaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kaartooyinkan ay dajinayso dowladda federaalka Soomaaliya ayuu ka gaashaamanaya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ciidamo fara badan ayaa la soo warinaya inuu aruuriyo kuwaas oo intooda badan ku hayba uuna doonayo inuu kaga hortago dadaalada filla Soomaaliya ay doonayso inay ku majaxaabiso isla markaasina meesha kaga saarto safar ugu ambibixi lahaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya si halkaasi kulamo ugu soo qaato mas'uuliyiinta ugu sareysan oo ugu la soo kulmo magaalada Nairobi ayuu gabi ahaanba uu kansalay sida warar hoose ay sheegayaan isagoo ka fogaanaya in laga hoos bixiyo inta uu ka maqan yahay magaalada Kismaayo isla markaasina dowladda ay kaga faa'iideysato abaabul ay ka samayso magaalada Kismaayo taasi oo qasbi karta in gabi ahaanba loo diido inuu ku soo laabto magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland taa bedelkeeda kulamadii uu ka dhici lahaa magaalada Nairobi ayaa loo weeciyay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland iyadoona wafdi wakiilka ka Uhuru Kenyatta ay tagi doonaan magaalada Kismaayo si halkaas ay kulamo uga qaataan waa kulamo ay ula qaataan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo Kenya si weyn ay gadaal kaga riixayso
dowladda federaalka wafuud ay qorshaysay ayaa la diyaariyay iyadoo sidoo kale diyaaradihii daabuli lahaana ay diyaar yihiin Axmed Madoobe markan waxa uu bilaabay dagaal dhinaca dhulka uu ka soo bilaabayo magaalada Kismaayo ilaa iyo Garbaharey ayuuna doonayaa in isku furo si halkaasi uu kaga dhigo aag ammaan ah oo uu ku dhuumaalaysto isla markaasina ciidamadiisa ay noqdaan kuwa ku sugan una diidaya dowladda federaalka Soomaaliya in wax doorasho ay ku qabato magaalada Garbaharey ee gobolka Gado inkastoo Garbaharey gobolkaas waa gobolka Gado ee Garbaharey ay ka tirsan tahay si weyn looga dhaliilsan yahay maamulka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe haddana waxaa jira xubno si weyn u taageersan oo la sheegay inay ku sugan yihiin qaybo kamid ah gobolka Gado xubno ka tirsan taliyaasha gobolka Gado ka howlgala ayaa la sheegay in si weyn ay ula dhacsan yihiin maamulka Axmed Madoobe dad ayaa hore loogu dilay qaybo kamid ah gobolka Gado kadib markii ay muujiyeen shucuurtooda ku saabsan sida ay u diidan yihiin Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kadib markii uu ku soo baxay doorashadii lagu qabtay magaalada Kismaayo ee natiijada doorashadaasi ay qaadacday dowladda federaalka Soomaaliya lama oga halka uu ku dambeyn doono xaalka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya si kastaba dowladana waxay qorshaysatay inay ka taqalusto Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa markan isaguna sarka adkaysanaya taageerada uu ka helay dowladda Kenya ayuu u kaashanaya weerarkan uu bilaabay uu kaga hortagayo in wafuud ka socota filla Soomaaliya ay ka dagaan qaybo kamid ah deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado caasimadiisa Garbaharey guud ahaan waxa intaas ku dhan warka Cadaada Media Group tan iyo kulanti dambe nabadey